السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena Nadaara Show. Maanta waa Sabti, taariikhduna waa 22ka bisha Luulyo sanadka 2023. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta oo Sabti ah idinkugu tala galnay. Haddaba barnaamijkan waxaan idinkugu hayaa laba arin oo muhiim ah. midda ugu horeysa saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada waddanka Ukraine ayaa kashifay sirta ay diyaaradaha Ruushku isticmaalaan marka ay weerar ku soo qaadayaan fariisimada ciidamada Ukraine iyo sirta ay ku burburiyeen iyo kaartada ay isticmaaleen diyaaradaha Ruushku markii ay burburinayeen taangiyada ay reer galbeedku siiyeen waddanka Ukraine. haddaba sirtaasu maxay tahay? maxay Ukraine ogaatay hadda oo ka yaabiyay dalalkii kale oo Ruushku uu isticmaalay? haddaba taagtikada Ruushku uu isticmaalay habkii uu ku burburiyay taangiyada reer galbeedka iyo hubkii la soo siiyay Ukraine ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa. qaybta kale waxaan ku eegi doonaa khudbad uu shalay jeediyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo markaa muujinaysa in Ruushku doonayo dhinaca galbeed ee waddanka Ukraine inuu ka soo weeraro Belarusia una qabsado magaalo ku dhow xadka Poland si loo jaro dhammaan wixii ka imaanayay halkaas. Poland oo arintaa ka cabanaysa iyo hadalkii shalay ayaa u yeertay safiirka waddanka Ruushka u fadhiya magaalada Warsaw si su'aalo looga weydiiyo Putin hadalkiisa. haddaba arrimahaas ayaan barnaamijka guud ahaan ku faahfaahin doonaa. maantana waa Sabti, barnaamijkuna waa kii ugu horeeyay ee maanta aan idiin soo gudbinayo. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. kulan wanaagsan ee khiyaartana daawanaysa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena aanu maanta oo Sabti ah idinkugu tala galnay. haddaba barnaamijkeena ayaanu ku bilaabaynaa. saraakiil sare ayaa la sheegayaa oo markaa u dhashay waddanka Ukraine inay tafaasiil ka bixiyeen khidada iyo kaartada Ruushka uu isticmaalay taasoo hor joogsatay hamigii ay qabeen Ukraine oo ahayd dagaalka rogaal celinta inay dhulkooda ku soo ceshadaan oo ay Ruushka iska saaraan. waxay soo kale heleen hubkii ay dalbadeen intiisa badan oo gacanta loo geliyay. taangiyadii Jarmalku sameynayay Leopard iyo kuwii Ingiriiska iyo Mareykanka oo keenay taangiyada Bradley wixii oo dhan. laakiin waxay yiraahdeen Ruushka khidada uu noo isticmaalay ayaa joojisay hawshii aan wadno dhan. way sharaxeen marka maxay leeyihiin? waxa warbixintan qoray mowqica la yiraahdo ad-difaac al-arabi ama majallad la yiraahdo arrimaha carabta ee difaacooda ka hadasha. waxay sidoo kale ka hadashaa siraha qarsoon ee militarigu isu sameynayaan dunida. marka mowqican aad baa warbaahinta u soo xigataa. waxa uu wax ka qoraa marka arrimahan xasaasiga oo kale. marka mowqican wuxuu leeyahay majalladani leedahay nimanka saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in Ruushku uu isticmaalay tactic aan horay dunida loo arag kaasoo keenay in la burburiyo taangiyadii cusbaa iyo hubkii cusbaa reer galbeedku ay siiyeen. midda labaad waxay yiraahdeen miinooyin fara badan oo dhulkii aynu weerari lahayn uu geliyay. hadday tahay miinooyinka taangiyada iyo kuwa baabuurta iyo kuwa qofka caadiga ah loogu talagalay inay disho. marka intaasoo dhan iyo difaac culus oo ay qoteen ayaa noo diiday inaynu soconno. marka midda miinooyinka waa iska normal, waa caadi. ciidan kasta marka ay ciidamo kale soo weerarayaan miinooyin oo dhigtaa difaacu kala waa caadi taas. laakiin midda la yaab kale ee majallada ka hadlayso waa wax ku cusub adduunkan
oo ruushka uu sameeyey oo hadda sirtoodii ay soo baxayso. waa tahay aayadi tuso marka majalada الدفاع العربي مجلة الدفاع العربي waxay ciwaan uga dhigtay ciidanka ruushku waxay adeegsanayaan diyaarado musayaf ah ama diyaarado aan jirin si ay u wareeriyaan oo ay ciidanka Ukraine difaacooda cirka u qaldaan ayay arintaa u sameynayaan diyaarado u eg kuwii dagaalka oo kale. maxaa marka maxaa laga wadaa diyaarado feega oo bombala ah ayay sameeyeen ruushka oo hawo laga buuxiyay qaar loo ekeysiiyay kuwa dagaalka iyo qaar loo ekeysiiyay helicopterada ay hadda ku dagaalamaan ciidamada wadanka ruushka. u fiirsadaya khidadan weligeed ma dhicin ay leedahay majalada waxaan ka akhriyay waxaan leedahay waxa kan wax adduunka hore loogu arki maaha. ruushka tactical la soo baxay dagaal oo cusub waa midda hadda hor joogsatay Ukraine hubka la soo siiyay waa hubkii NATO ay ku dagaalami lahayd xataa waxaa la leeyahay warbixinta dad khubara oo ka hadlaya waxay leeyihiin ciidanka Ukraine xataa kaligiis ma ciidamo kala la socday oo waa la buunbuuninaya howlgalkan. reer galbeedku waxay lahaayeen weerarka rogaal celinta midda ku dhacda Putin midda ku dhacda laakiin Putin khidada uu degay ayaa la yaab noqotay. marka mowqaca wuxuu leeyahay diyaarada feega ayuu ku soo dagaal galay ruushka. marka maxaa waaye faahfaahinta marka ay sheego marka maxaa laga wadaa diyaarada feega diyaarada dagaalka ee helicopterka ee xasuuqday taangiyada waxaa la yiraahdaa Ka-52 la yiraahdaa hore idinku sheegay dhowr week ka hor. diyaaradaas marka Ka-52ga mid iyada u eg oo bombala camal ah oo hawo laga buuxiyay ayaa la soo tuurayaa. diyaaradda soo tuuraysa markay hawada tagto wax hawada saaldeynaya oo ku soconaya oo diyaarado kala waay midka xagga dhinacaasna miday ku tuure dhinacaana miday ku tuure dhexdana miday ku tuure iyaduna gadaal istaagay. marka waxay rabtaa dhulka waa kaymo meesha lagu dagaalamo inta badan Ukraine waa dhul iska barwaaqo ah waa dhul geeda ah waa dhul kaymo ah. marka hubka lidka diyaaradaha waxuu galaa meelahaas geedahaas hoostooda. marka waxay arkayaan Ukrainiyiinta diyaaradda socota waxay leeyihiin marka diyaaradii waa timid hubkii marka waa la soo baxaa oo dagaalama Soomaha dhag diyaaradda waa iska bombalo markiiba marka way ku dhufanayaan ama marka hore way la weynayaan marka ku dhufanayaan diyaaradii marka saxda ahayda dul taagan markaan geeska inta ka timaado markay aragto qoriga meeshu ka dhacay bay gantaalaha sida roobka ugu garaacaysaa. marka nimankii marka Ukraine waxay leeyihiin majaladan waxay leedahay Ukrainiyiintu marka waxay yiraahdeen iyadoo arintaas aan jibisay waxana baabi'iyay waa waxaas. waxay leeyihiin helicopterada kaliya ma ahan waxa sidan la sameynaya waxa xataa loo ekeysiinaya diyaaradaha Sukhooyga la yiraahdo ruushka uu ku dagaalamo ee kuwa dagaalka bambooyinka rida kuwa weega la soo sameynaa waa la buufinaa hawada marayaan hawadaas wax ku jira ma taqaanid tii ma bombalaha ahayda ma tii kala way wareereen Ukrainiyiinta marka tii bombalaha iyagoo dhaha ma naga hubi maxay tahay tan say u leeyihiin markaas madfac ku dhufanay. marka waa ruushka tacticada uu la yimid waxay yiraahdeen mid adduunka hore loo arkay ma ee sababtoo ah diyaarada hadda aragto waaba soo ridi lahayd laakiin midda ridaysid ma tii bombalaha mistii kala waa yaa yaqaan 10 xabba socod 9 waa bombala midaa saxan waxay raadinay meesha gantaalku ka soo dhacay. marka arinta buu qoray mowqacan runtii waa arin la yaab leeyihiin dadka khubarada waliba waxa soo xiganaya dad fara badan oo laga wareysanaya maaragtay oo tacliiq sameeya arrimaha militariga. mowqacan marka waxay leeyihiin majaladan warka ay sheegayso waa warka saxda ah ee lagu jabiyay nimankan Ukrainiyiinta ah
marka ilaa haddana marka dhibaatadii way taagan tahay xal looma hayo leeyihin taangiyada waxa naga burburiyey waxa dhan waa waxaas waa soo ridaynaa waa bombale wayna qabanaytii saxda ahayd annaga markayna aragto meesha joogno macalitaangiyadeena wax suuqaysa wax la yaab la somaa waa sheeko runtii cajiiba oo aada u yaab badan maalin walba wax cusub aan dagaalkaa baranayna annaga laftirkeena hadda waxaad moodaa inaan dagaalka ku jirno maalin walba khidad cusub iyo kaarto cusub aan baranaynaa sida laysu isticmaalayo adduunkan waa taa qodobkaa marka intaa aynu kaga gudubno qodobka kale ayaan marka rabaa inaan idinka hadlo madaxweynaha ruushka shalay wuu hadlay hadal dheer u jeediyey wuxuu ka hadlay arrimo muhiima oo ku saabsan mustaqbalka iyo waxa ay doonayaan waddankiisu markaa soo koobno marka arrimaha qamadiga iyo waxa kan wuxuu yidhi haddii shuruudaheena aan la fulinin weligeed saana iska aana ciddii gaajo u dhimanaysaa u dhimato laakiin heshiiskii hore aan galnay baa shuruudaheeni ku jireen in la aqbalayo waana la aqbali waayey heshiis cusub ma dhahayno kii hore waa in lagu dhaqmaa kaas waa in dib loo saxeexaa haddii la diidana waa kaas annaga ma yeelayno dadkeena qamadida iyo galleyda iyo soo saara beeraleydeena oo intaasoo khasaaray inaan haddana khasaaro kale ugu sii darna marabnau leey iyadoo adduunyadu ay leedahay baahiyaa dhacaysa ay ruushka ha fasaxo taas wax ka jiraa ma jiraan u yidhi wuxuu kaloo sheegay marka muhiim ah magaalo la yidhaahdo Lviv oo ku taala xuduudka Poland iyo Ukraine waa magaalada wax kasta oo reer galbeedka huba ay keenaan markay Poland ka soo dejiyaan meesha ay soo marsiinayaan waaye Lviv la yiraahdaa si cadow marka wuxuu u sheegay waxaan doonaynaa inaynu qabsano magaalada Lviv waana degaynaa weligeena kama baxayno dhah soo qabsan karaa marka waa la isweydiiyay hadda waxaan idin sheegay waaye nimankii Wagnerkii Belarusiya u joogay ayaa inta soo baxaanay magaaladaas qabsan karaan way u dhow yihiin marka jiha kale waxa leedahay dhinaca galbeed ee waddanka Ukraine la yiraahdaa jihada galbeed marka inay magaalada qabsadaan oo halka ay kala gooyaan ay rabaan marka ay tuso qariidada magaalada halka ay ku taalo magaalada waatan waxa leedahay Lviv xuduudka waxay u dhowdahay Poland halkaas marka wax walba oo soo dega la soo marsiyaa marka magaalada wixii la soo marsiyo qariidada marka la ay tuso waxay soo gaarsiisaa furmaha hore ee dagaalka aagagaas ay imaadaan hubkii halka ka soo degaa marka meelaha barta gudguduudan leh waa dhulka dagaalku ka socdo oo ruushku uu ka qabsaday Ukraine halka lagu dagaalamayo waa marka hubkii halka ka soo baxay halkaas u imaanaa marka sidoo kale qariidada ayaa lagu cabiray arintan ay tuso halka uu rabo marka inuu ka soo weeraro Lviv marka wuxuu ka soo weerarayaa sida aad arkaysaan fallaaraha madmadow Belarusiya ka soo baxayaan ciidanka Wagner iyo kuwa Belarusiya waxa meesha uu ka qoranaa Putin ayuu wuxuu rabaa inuu halka ka soo geliyo oo marka ay kala jaraan magaalada Lviv uu qabsado Ukraine ay halkeeda joogto halkaana uu qabsado marka halkaas marka taagtigaas uu wada qorshahaas marka uu ciyaaraya waa tahay marka wuxuu kaloo ku eedeeyay Poland inay doonayso inay soo gasho dhulka dhinaca galbeed oo macnaha magaalada Lviv inay maaragtay doonayso iyada laftirkeeda inay soo durugto oo halka ay timaado oo waddanka Ukraine ay dhinac ka soo gasho wuxuuna sheegay taa haday dhacdo in si fiican la isu salaami doono Ukraine dhulkeeda ma la soo gali karo taagaya isaga waa ku jira ninka Putin la leeyahay waa dhiwareys isaga wuxuu leeyahay Poland ma soo gali karto wuxuu isleeyahay Poland inay reer galbeedku waxay rabaan Poland iyaduna inay soo weerarto Lvivtan weerar inay soo sikato oo Lviv ay qabsato halka uu asagu halka ka qabsan lahaa marka asagu wuxuu leeyahay halka ma imaan kartid marka dhulka lagu gorgortama waa Ukraine nimankii Ukrainiyiintaana waxay u muuqdaan kuwa xaalkoodu faraha ka baxay haddaba aan idin tuso warbaahinta ruushku waxa ay ka qoreen arintan warbaahinta ruushku waxay leeyihiin ninka la yiraahdo Narishkin waa taliyaha mukhaabaraadka ama sirdoonka waddanka ruushka wuxuu sheegayaa Poland waxay ka fakaraysaa inay ciidamo keento galbeedka Ukraine waa magaaladii hadda aynu ka hadlaynay ee Lviv ayuu rabaa ayuu leeyahay way keenaysaa marka dhinaca kale dawladda Poland ayaa waxay ka carootay hadal uu jeediyay oo ah Putin shalay dhul Jarmalku leeyahay ayay Poland qabsatay ayuu yiri
dagaalkii labaad markii Jarmalka laga adkaaday marka Jarmalku waa inay ka fakaraan dhulkooda say ku soo ceshan lahaayeen marka mana laga yeelayo inay Poland haddana ay soo gasho galbeedka waddanka Ukraine asaga marka Ukraine dhinacu rabo ka qaadanaa hawshu rabo iska maamulana cid kalena ma imaan kartuu leeyahay baashaan anaa ku dul degtay aniga baashaan feenanaya yaa leegu imaanin cid kale oo dhinac kale ka soo gali karta ma loo leeyahay marka ninkaas waa nin wareersan marka maxaa dhacay ay tuso dowladda waddanka Poland ayaa waxaa la leeyahay sawirka halka ka muuqda waa safiirka Ruushka Poland u jooga waxay u yeertay dowladda Poland wasaaraddeeda arrimaha dibadda safiirka Ruushka Poland u jooga waxay su'aalo ka weydiisay hadalkii uu shalay sheegay Putin ee ahaa Poland waxay qabsatay dhul Jarmalku leeyahay haddana waxay boobaysaa dhulka Ukraine marka hadalka waa dacaayad leeyihiin isaga raba inuu dhulkan qabsado haddaba warkii ama warbixinadeennii barnaamijkii koowaad ee maanta oo sabti ah inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa inagoo labada qodob ee muhiimka ah idinkugu soo gudbinay haddii alla idmo barnaamij kale ayaan soo gudbin doonaa saacadaha soo socda oo markaa ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee adduunka waxa soo kordha ayaad kala socon doontaa fadlan intaadan ka bixin barnaamijka share garay oo like sar haddaad ku cusubtahay YouTube-ka subscribe sar haddaad ku cusubtahay Facebook-gana follow garay si barnaamijyadeena mar walba aan soo gelina ay kugu soo dhacaan uga faa'iidaysatid dadka kalena ay uga faa'iidaystaan inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo meel kastoo aad joogto